oo shirkan ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir sidoo kale ay ka soo qayb galeen maayarada degmooyinka iyo isduwayaasha laamaha kala duwan ee maamulka ayaa ku qabsamay xarunta maamulka gobolka Sool ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay maayarada degmooyinka iyo isduwayaasha maayarka degmada Boocame hadlaya waxaan kaga faa'iideysanayaa sida uu noola shaqeynayo barasaabka gobolka oo uu noo dirdirgelinayo hawlaha amniga haday tahay horumarka haday tahay degmada Boocame waxay ku taala xuduudka Somaliland dhinaca bari waxaan xuduud la leenahay degmada waxay xuduud la leedahay Puntland badan bay dib u dhac ay tirsadeysay laakiin maanta waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in ciidamada ay ka howlgalaan amnigeeda ciidamada Somaliland oo fadhiyo ku leh degmada Boocame kuwaas oo ka shaqeyn doona hadii Ilaahay idmo nabadgelyada deegaanka u sheegaya in horumarka degmada lala soo gaaro hadii ay caafimaadki tahay waxbarashadii hadii ay tahay xagga xoolaha hadii ay tahay xagga beeraha maanta halkan waxaa iskugu nimi kulan wadajir iyo iswaraysi xog wixii ku saabsan u diyaar garowga iyo ka hortagga abaaraha iyo dhulka xaaladda abaarta waxa jirta warbixin degdeg ah aan rabnay inaan shirkan u qabsanay waxa jira gobolku kala bar ahaan kamana diin dayrtii hadda dadku soo dhaafay kuwii hore ee abaartu jirtayna kama diin marka bar ahaan gobolka guud ahaan waxa ka jirta abaar in badan soo socotay qaybo kalena waa la isugu tagay oo wixii roob ka daay baa la isugu tagay taana maxaan ku shaqulays sida warbaahineha badankooda waad ku aragteen dadkii waaweynaa u dhimanayo caruurta iska wadaya jaleeco dadkii waaweynaa u dhimanayo ayaa xataa jirta biyo yaraan baa jirta oo waxa weeye dalku wax biyo ku filan deemoo lahayn wadamayntina waxaa shirkaasi soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobolka Sool waxa nabadgelyo xumo hadda maanta ka jirtaana aanay jirin dhan walbana xagga nabadgelyadu aad iyo aad u wacantahay kana soo horeynayso runtii xagga hawdku wuxuu ku liitaa oo culays badan ka saaran yahay biyo la'aan ifafaalaheeda hadda ay muuqdaan maadaama aan ceel dhaadheer oo ceel biyo aan lahayn gobolka xagga hoose ama nugaasha dadku yiraahdaan ama degmada Taleex iyo mataqaanay xudun jiida ka degan laamiga waxa gobolku ka sameeyahay xanuuno jira oo dadku ku dhacaya oo aynu ka xus karno jadeecada laakiin xaaladda abaareed ee markii hore gobolka haysay heshay inay sababtay barakacayaal fara badan iyo xiriir fara badan oo gobolka meelihiisa kala duwan ku urursan cid ay wax ka sugan ay tahay xukuumadda Cabdiraxmaan Ali Ducaale Home Cable TV Laascaanood